waxay soo bilaabatay xilligii madaxweynihii hore ee Faransiiska François Mitterrand ee uu dowladda Masar ka codsaday in lagu soo wareejiyo meydka Fircoon si ay u baadhaan. xilligaas oo ahay dhammaadkii siddeetamaadkii wuxuuna waagaas madaxweynaha Faransiiska u xilsaaray arrintaasi saynisyahankii Faransiiska ahaa ee Maurice Bucaille. Maurice waxa uu 19 bishii Julaay 1920 ku dhashay magaalo Faransiiska ku taala oo lagu magacaabo Bon-la-Vic. waxa uuna ku soo dhex barbaaray qoys haystay diinta Kiristaanka. wuxuuna wax ku bartay oo ilaa heer dugsi sare ku qaatay dugsiyo aan islaami ahayn, kadibna waxa uu ku biiray kuliyaddii caafimaadka ee jaamacadda Paris. markii uu ka qalin jabiyey jaamacaddaasna wuxuu shaqo ka bilaabay xarun caafimaad oo ku taalay jaamacadda, isagoo ahaa dhakhtarka qaliinka cudurrada guud ee uurku jirta gudaha ah. lixdameeyadiina Bucaille waxa uu noqday dhakhtar caan ku ah xirfadiisa, waxauna wakhtigaasi la tacaali jiray bukaano u badan muslimiin, kuwaasoo uu la sheekaysan jiray qaar ka mida. mar kasta oo uu yimaado qof bukaan oo muslim ah wuxuu wax ka weydiin jiray qur-aanka. sanadkii 1969 Maurice si uu wax uga ogaado qur-aanka micnihiisa islamarkaana u fahmo waxa uu ku biiray macadka barashada luuqadaha iyo xirfadaha ee magaciisa loo soo gaabiyo INALCO ee Faransiiska si uu u barto luuqadda carabiga. 4 sannadood ayayna ku qaadatay inuu si fiican u barto luuqadda, taasoo si weyn markii dambe uga caawisay inuu qur-aanka kariimka ku akhriyo luuqadda carabiga. wixii intaa ka dambeeyeyna gaar ahaan dabayaaqadii siddeetamaadkii aragtidiisii ayaa wax iska bedeleen, waana tii ku riixday inuu u kuurgalo meydka Fircoon kadib markii isaga iyo wafdigii ballaarnaa ee madaxweynaha Faransiisku ay ka qayb galeen sidii ay u soo dhoweyn lahaayeen diyaaradda khaaska ahayd ee siday meydkii Fircoon ee laga keenay dalka Faransiiska. kadib markii la soo dejiyey meydkii Fircoon waxaa loo qaaday goob gaar ah oo baaritaan ah, taasoo ku dhex taalay xarunta dhaqanka ee Faransiiska, halkaas oo ay ku diyaar ahaayeen khubradii ugu waaweynaa dalka Faransiiska, dhakhaatiirta qalliinka, saynisyahano iyo weliba aqoon-yahano kale oo fara badan. waxaana barnaamijkaasi hogaaminayay Professor Maurice Bucaille. balse arrinka la yaab kale wuxuu ahaa intii ay socdeen baaritaanadan u sameynayay Fircoon, dhammaan saynisyahanadu waxay raadinayeen oo ku mashquulsanaayeen howlo kale iyo inay dib u soo celiyaan jirka Fircoon, halka Maurice uu dhankiisa baadigoob ugu jiray inuu ogaado sida Fircoon u dhintay. intii uu ku guda jiray baaritaanadaasna waxa uu arkay arrimo aad uu la yaabay oo gebi ahaanba ka duwan meydka faraaciintii hore. haddaba markii uu xadhigga ka jaray meydka Fircoon waxa uu la yaabay in gacantiisa bidix ay u soo boodday xagga hore. taasna waxay dhakhtarkan u xaqiijisay in qofkii kafanta ku xidhayay meydka Fircoon xilligii uu dhintay uu khasab ama cadaadis u geliyey gudaha gacantaasi. waxayna tani ku abuurtay Maurice Bucaille fikir badan iyo dadaal dheer sidii uu uga gungaari lahaa waxa gacanta sidaasi ka dhigay, ilaa markii uu dhammeeyey daraasadiisa uu ogaaday in tani ay ugu wacan tahay biyaha milixda ee ku harsanaa jirka Fircoon iyo weliba sawirro kale oo muujinaya in qaar ka mida lafihiisu ay jaban yihiin kadib markii raajooyinkii la saaray ay sidaasi muujiyeen. waxayna taasi u xaqiijisay Dr. Maurice in Fircoon uu ku dhintay biyo, khaasatan ay liqday baddu, xoogaa biyaha badduna ay sababtay inay jabaan lafihiisu. gacanta markii meydkiisa xadhigga laga furay soo boodayna ay tahay gacantii uu ku hayay gaashaankiisa ama seeftiisa midkood. biyaha badda ee soo boodayna ay sidaasi u gashay gacantiisa, taasoo dadkii kafanta ku xidhayay meydkiisa ay ku adkaatay in gacantaasi si sahlan loo dhigo ama loo saaro laabta Fircoon si lamida faraaciinta kale, taasoo keentay in si khasab ah lagu xirxiro. laakiin arrinta la yaabka leh ee Dr. Maurice ka yaabisay ayaa ah sababta jirka Fircoon uu weli u yaalo ifka oo aan u googo'in islamarkaana uusan si weyn isku bedelin, inkastoo Fircoonkani uu ahaa kii ugu xumaa ee lala tacaalo maadaama badda laga soo saaray. wakhtigaasna Dr. Maurice aad ayuu u farxay, wuxuuna go'aansaday inuu diyaariyo warbixin uu soo gudbiyo adduunka taasoo ka warramaysay guushiisa iyo daahfurkii uu ka helay sidii uu Fircoon u dhintay, taasoo aysan jirin cid kale oo adduunka ah oo daaha ka qaaday qaabkii uu Fircoon u dhintay. qaar ka mid ah aqoon-yahanadii Faransiiska oo Dr. Maurice la kulmay ayaa ku yidhi ha degdegin, arrinkan arrin cusub maaha. muslimiintu way ogyihiin in Fircoon ku dhintay badda, qur-aanka kariimka ah ayaana arrintaasi u caddeeyey. laakiin Dr. Maurice aad buu uga biyadiidanaa arrintaas. waxa uuna ugu jawaabay, daahfurkan aan gaadhnay ma aha mid sahlan oo waxa keliya oo lagu ogaan karaa waa qalabka ama cilmiga casriga ah ee dunidu maanta ku soo kordhay, sida aaladaha casriga ah ee kombiyuutarada iyo raajooyinka. waxa uuna intaasi ku daray isagoo hadalkiisa sii wata, meydka Fircoon waxaa la helay sanadkii 1898. wakhtigaasna bini'aadamka oo dhammi waxba kama ogeyn masaaridii hore sida ay wax u kafmi jireen. haddaba sidee buu qur-aanku ugu sheegay qarniyo ka hor arrintaasi?
wuxuuna dr morris isaga oo yaaban habeena dhan dul fadhiyey meydka fircoon halkaasoo markii dambe uu soo ururiyey kutubtii samaawiga ahaa oo dhan si uga soo helo macluumaad ku saabsan qisada fircoon wuxuuna yaqiinsaday in kitaabka qur-aanka kariimka ahi uu ka warramay qisada fircoon iyo nebi muuse nabadgelya korkiisa haatee dr morris isaga oo wareersan oo in badan ka fikirayay sababta iyo sidee iyo marunba inuu fircoon ahaa daalimka ilaahay caasiyey nebi muusena cayrsaday inta aysan baddu liqin ayuu wuxuu go'aan ku gaadhay inuu masar tago oo arrimahaas oo dhan kala hadlo culimmada muslimiinta iyo kuwa mas-uulka ka ah halkii masar uu ka yaalay meydkii fircoon isaga oo su'aalahaas oo dhan xambaarsan ayaa su-aashiisii ugu horraysay waxay ahayd maxaad ka ogaateen meydkii fircoon markaasaa mid ka mida culimmada u keenay kitaabka qur-aanka islamarkaana u akhriyey aayadaha ku saabsan fircoon oo dhan goobtaas ayuu dr morris kaga dhawaaqay shahaadada kuna soo galay islaamka isaga oo rumeeyey qur-aanka dr morris bukaay wuxuu kadib ku soo laabtay waddankiisii wuxuuna noqday daaci muddo 10 sanno ah gaaraysa ku howlanaa baadhista qur-aanka kariimka ah iyo siduu ula jaanqaadayo xaqiiqooyinka sayniska ee casriga ah ee dunida gaaraysa ama qaarkood aan la ogeyn waana mid ka mida mucjisooyinka waaweyn ee ilaahay tusayay ummaddiisa wixii ka dambeeyey fircoon oo ah ninkii ilaahnimada sheegtay inuu maanta weli ifka yaal isagoo aan googo'in amaba isbedelin sababta sidaas looga dhigayna waxay tahay sida uu alla subxaana wa tacaala inoo sheegay in lagu cibro qaato oo lagu waantoogo ilaahayna haynaga dhigo kuwii hanuunsama oo waana qaata diintuna sida ay tahay ugu dhaqma meydka fircoon iyo kuwo badan oo kale oo la mid ah waxay ka mid yihiin calaamooyinka ilaahay ee ku soo arooray qur-aanka kariimka ah oo ay weli ku gadaaman yihiin siro iyo aragtiyo badan oo cilmiyeed oo ay qaarkood siinisyahanadu daafureen kuwana ay weli baadagoobayaan fasirkooda halka qur-aanka kariimka ah laynoogu sheegay inuu ka hadlay ayadahaas boqolaal sanno ka hor taasoona tusinaysa xataa kitaabkeena barakaysan waxaana ka mid ah sirahaas ay culammadu ogaadeen oo laynoo sheegay qur-aanka kariimka ah meydka fircoon oo ahaa nin diiday oo ka madax adeygay aayadaha iyo xujooyinka rabbi subxaana wa tacaala ugu soo dhiibay nebi muuse calayhi salaatu wasalaam fircoon ayaa ahaa ninkii ilaahnimada sheegtay isagoo aadane ah wuxuuna ku sii socday kibirkiisii islaamnimadiisii ilaa uu la kulmay ciqaabka alleh isaga iyo intii raacsanaydba islamarkaana badda lagu qirqiyey